fanaanka Maxamed Xaashi Dhaqan oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Cadaado waxa uu fanka soo bilaabay sanadkii 2017 waxaana dhaantooyinkiisa ay yihiin kuwa uu leeyahay laxanka erayada iyo codkaba. ninkan oo noo sheegay in yaraantiisii uu ku soo barbaaray miyiga magaalada Cadaado oo ay reerkiisu deganaayeen ayaa jeclaa inuu ciyaaro dhaantooyinka. caqabado badan ayuu kala kulmay gelista fanka, laakiin hadda waxa uu ka mid yahay fanaaniinta loogu jecel yahay ee xafladaha laga wacdo. wariyaha raadiyo ergo ee magaalada Cadaado Cismaan Madaale ayuu ugu waramay xubinta falanqaynta heesaha ee toddobaadkan. aad u mahadsantahay Cismaan. horta waa dhowahay, aad u dhowahay. aniga fanka waxa ku soo biiray 2017 ilaa 2016 inta u dhaxaysay anoo meelahaas miyiga iska jooga oo miyigaas ari iskaga raacda ayaa waxa igu soo dhacday in dadkan baraha bulshada ku dhex jira oo fanka ku dhex jira ma iska soo dhex galo. aad iyo aad marka hore ciyaarta iyo waxa sida wax loo tunto waxaasna baadiyahaas ka tuman jiro ciyaarta ka yaqaanay. marka magaaladii bahashi hore u bilaabay anoo abgaan u tagin oo waxba u tagin ayaa waxa soo samaystay miro anigu aan leeyahay dhaanta deeqaluule la yiraahdo oo dhaantinka aqaad ugu horeysay erayadaas soo samaystay oo anigu soo samaystay. marka dhaantadaas ay ugu horeysay dhaanta soo fanka soo biyo marka dhaantadaas dhaantooyin aad qaado kugu horeysay bal magaceedii iyo erayadeeda wax kamid ahaa ima xusad. magaceeda waxa la yiraahdaa deeqaluule. erayadeeda waxa ku jira caada ku jira dahab weeyo cadaad markuu roob ku do dayma quruxsane yalahayo ku do. marka heestan dhaantadan waa dhaanta aad qalbiga dadka u soo jeedanaysa haddana abwaan uma adeegin laxanka oo kaleeto yaa ka saaciday iyo music oo kaleeto arrimahaas yaa isku ka riday maadaama ay heestu kugu horreeyay oo hadda ka hor hees aad qaaday markaas. horta erayada iyo laxanka markii la yiraahdo anaa sameeyay laxanka aniga saartay muusigan waxaa tumay Cumar Mooyo nin la yiraahdo oo saaxiibkayga Muqdisho jooga ayaa muusigan tumay. erayada iyo laxankan anaa iska leh soo saartay. marka heestan kidibteed dadkii maxay kaaga falceliyeen noocyada u arkeen heesii dambe sameynaysa taageero sameeyay markaas kadib. aad iyo aad bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad taageero badan ayaa ka arkay saasna ana fankii uu si dhax galay oo dhaantooyin badan ayaa ku soo xijiyay oo kala duwan kuwa madaxa iyo kuwa aroosya dhaantooyin badan kala duwan ayaa ku soo celiyay. aad iyo aad bulshada ay taageertay oo aan ku faraxsanahay waliba taageerashadooda. waxa la yiraahdaa fanaanku markii uu soo galo fanka uu ku soo biiro wuxuu caanimada lafteeda caqabad ay leedahay. bal arintaas shaqooyinka ka shaqeysay jirtay oo kaleeto dhexmaridii magaalada midigii hore ku soo korto oo kaleeto dadkii aad isku taqaaneen sababay kaaga falceliyeen. horta inkastoo anigu meel fanka aad iyo aad looga xiisay aan joogin caqabado badan waa arkay. bal waxaan dad badan ilaa iska daa waxaan ka joogo adiga ma yara 100 qof waa tiri ka joogo waxaan ka joogo ehelkayga u badnaadeen. marka waxa fiirinayaa hamigayga ayaan heer u gal lahaa heerkan faneed soo markii hore shanta la galay haddana waxaan jecelahay inaan wali heerka sii gaalo oo aan kaarin la heerka gaalo. waxa jiray heesooyin heesaa kala ka jecel fanaaniintu waxa la yiraahdaa heesbeesta ka dambeeyay ka jecel marka ma heesaha adu noocaas aad u kala jeclaataa ma waxa jira qaar aad gooni u siixisay. aniga markii shakhsi ahaantii la fiirsho dhaantooyinkii waxa ugu xiiseeyaa dhaanto ila qaaday gabar qaali loof la yiraahdo oo aan ugu talagalnay oo adiga magaalada iyo ammaani iska ahayd oo aan markii soo saarnay dhaantaas ay ugu jecelahay antinka aqaaday gabar la qaaday gabar. waxa jirta marka dhaanta kale oo la yiraahdo daryeel oo in badan baraha bulshada ku faaftay dad badan ay kugu barteen bal dhaantaas sababta aad u qaaday iyo waxyaabihii kugu dhaliyay cid kala qayb qaadatay faahfaahin naga siidan. wallahi dhaantaas halkan la yiraahdo erayadeeda anaa sameeyay laxankana anaa saaray muusigana waxaa tumay yar saaxiibkay kalka ay joogo la yiraahdo Maxamed Qaldaan. marka dhaantada waxay ku saabsan tahay ammaan degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada sida Beelo kala Dacdheer oo kale ay ku saabsan tahay laakiin cadaado aan dhaantada ammaan wadankii ku faanay ku soo qaaday
dhaantadan daryeel ugu magac dartay bal sababtii aad u qaaday iyo eriyadeeda wixii ka mid ka ahaa bal dhageystayaasha la wadaag. heestan waxay soo baxday 2019 ayay soo baxday. heestan ariyadeeda waxaa ku jira adiga maqaalada alla gaarin hoosta alla dariyas ariyo marka noocaas ayaa ku jira. alla dariyo xisho alla daa'im baaqood alla ku adeynka almaydan dahay alla dariyo xisho alla daa'im baaqood alla ku adeynka almaydan dahay alla dunya leeyi alla geel bankaarab alla aadayrodan alla mayla tagin debra alla dunya leeyi alla geel bankaarab alla aadayrodan alla mayla tagin debra. girin hooste dadka ka mid tahay oo aad iyo aad u jeclay oo kafee cabitaanka iyo kafeega ay u doontaa jeclahay markaas u soo galashay. ugu dambeyn bal caqabadaha ka yimaada dhanka fanka maxaa ka mid ah inta ay dhalinyartu ku jiraan? wallahi caqabadaha fanka ka yimaada waxa aniga caqabada ay u timid oo ugu badna waxay ka mid tahay ahayd in la yiraahdo ruuxan iska daaniyo waxaan wax diinta islaamka qabto maaha waxaan waa dambi waxaan waa fasqi. marka caqabada ay ugu badneed intaas ila ekeed ay caqabada ka waaweyn oo dhibkaas kala ma arag wali ma soo arag. dad waa jiraan niyada ku dhisay ku dhahaya hore u soco dad waa jiraan ku dhahaya waxaan waxba loo joogtay waxaan ka baxnay waxba loo joogtay laakiin total labada qofna ma fiirsho marka hamiga ayaa fiirshaanay. ugu dambeyn marka teebaa jeceshahay kulankeenan inaan wareysigeena aan ku soo gabagabeyno oo dhageystayaasha aan uga tagaynaa? waxaan jeclaan lahaa dhageystayaasha aniga raacaysa ka hadlo dhaantooyinka ugu jecelahay Central ee gabar saaxiibtay Qaaliloof ay la qaaday jeclaan lahaa oo ka hadlaysa meesha ugu muhiimsan ka hadlaysa magaalada ugu weyn Central dabaqa Central taqaanid ay ka hadlaysaa marka dhaantada jeclaan lahaa ku soo gabagabeyno barnaamijkeena. Central jooga in suurad waan saakayga hortay sababada jidkiisa sadrigaygu degay waa su'aale yarka warma Soomaaliba anigo socdo Central jooga in suurad waan saakayga hortay صدريقان عذاب يا نصعد قبل سيبياك لباحة صوت صانو جعايل كسوغايو والسلام يوسك سبب لدغي hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee 16 mitir baan dhegeystayaasha jooga Soomaaliya waxay qaarkood nagala socdaan idaacadaha halka ku haysta adeega internetka ay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee radio ergo.org.